بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دمان أخيارتا صاحبة أن برها برشدة كوضا سعني جزاكم الله خيرا دمانتين انتا كدب waxaan rabaa inaan caawa ama maanta bilowno qaybtii labaad ee taxanaheena waliba soo koobnaan doonaan aad u badnaan doodin waa qaybtii dacwada iyo doodahaas oo dibadda iyo gudahaba ka dhacay waxaan qorsheenu ahaa si aan horey uga ballanay inaan ka bilowno tii aan la soo kowsaday ana muqdisho soo galay 98 dhamaadkeedii ayaa lagu martiqaaday dood culimadii meesha marka ugu tugtugrooneyd Soomaaliya magaca salafka sheeganaysay marka laga reebo suufiyada saddex qolo kale jirtay qolo waa islaax oo Qurtubi iyo Dusuuqi iyo kamid ahaa iyagu cidna lama doodaan islaax waa iska flexible niman taaquud wax la yiraahdo iyo waxa sunnada aan ku mashquulin islaax waa ikhwaan xoogaa iska ikhwaankii adigu nooca turaabi oo kale weeye kutubta iyo culunta iyo waxba akhriyaan laakiin nooc kale oo waxay leeyihiin tamyiic ama fududeyn diintii oo la jilciye ah xataa waxa arkaysaa fanaanin baa la dhigi jiray kooxda Abu Hurayra kooxda Abdullah ibn Mas'ud baa maqlay waa niman dad fanaanin oo heesay oo wadaniyada iyo ku heesay gabadhii xijaab baa la heestina lagu tarbiyeenay waa waxyaabo aad aan la yaabnay ahayd ma qanay hadda wadanka jiraan in kale culimadooda de Qurtubi baa kamid ahaa oo xijaabkii waagi dambe tacaanin jiro lala dagaalamay oo lagu kacay xijaabku waa weyn oo ku tilmaamay mudul guuraya gabadhii guriga ku tilmaamay iyo sidoo kale suuqina waa la yaqaanaa waxyaabo ku saabsanaa 99kii waqtiga aan imid wax yar kadib saajid cali suufi hadalkii uu ka yiri ku saabsanaa guursashadii nabigu guursaday Aisha radhiyallahu anha dad baa yiri uu ka toobad keenay laakiin wali ma arag la si iclaan uu yiri iclaan toobadiisa muujiyay ahayd gaf nabiga uu u gafay calayhi salaatu wasalaam oo dookhii nabiga gabar yar inuu maartay guursaday buu taaninaya farci dilo habeenka ku fakaday mar horena waan ugu yeernay inuu arintaas ilaahay uga laabto iclaamiyo hadiiba ay sabq lisaan ka ahayd haday ula kac ka ahaydna de waxa ama toobad keenin cid walba nabiga cidii tacnisa sallallahu alayhi wasallam abaalkiisa wahelaya marka islaaxu marka saas ayagu hadda culum ahaan uma muuqan jaamacada iyo kuliyaday leeyihiin waa iska ilbax waxay isku dayaan inay iswaafajiyaan dimuqraadiyadda iyo casriga cusub iyo islaamka wax walba in la iswaafajiyo wax isdiidaaba aanay jirin marka iyaga xagga aan dhiganay labadii qolo kale اتحادكي oo sunnadii xijaabkii iyo salaadihii iyo adkaartii dadka soo baray aad u soo dadaalay iyo salaful jadiid hadda yimid oo yiri waxaan laba ka kac wadada saddex saxdeed haddaan haynaa manhaj salaf saalix wax taaquud la yiraahdo ashhaadanaya ma jiraan meesha kuwan kale ay dadku u cadeyn jireen ninka haduu kitaabka alla ka tago shariico kale ummadda ku maamulo taaquud baa la yiraahdaa taaquud aad bay u nicmi magacaas in la sheego xataa nimankan la yiraahdo jadiidiyada ama salaful jadiid labadii qolo ayaa markii hore masaajidada iska hadallo isugu jawaabi jiray ayagoon la is horkeenin waxaa aad loogu dadaalay in la is horkeeno oy bal wada hadlaan waxaa la isku khilaafsan yahay si hal wada loo maro ugu yaraan ama tacninta la isaga daayo marka firfircoonida nimankana marka aad bay u soo baxday oo waxay ku guuleysteen aan oran karaa salaful jadiidka dagaaladii itixaadka oo dhowr dagaal intuu soo galay guulna aan ka keenin ciidamadooda dadkooda hubka daadiyeen boqolaal qofna ay soo dhimatay wax guulana markaan ahayn magacii intay bedesheen hubkii daadiyey ee yiri markaa dad nabadeed baana ayaa kuwana ka faa'iideysteen oo yiraahdeen haddii dagaal wadeen dagaalku duu jihaad yaa jihaad xaq buu ku dhamaadeen waa karaan nimanka awalba baadilba ummadda u horseedeen way weerarkaasi wadeen kuwana ay ku oran jireen diinta ka bay sheegeen oo waxa weeye wax la yiraahdo diin in loo halgamo dhanba waa ka zuuleen waxa la sameystay cadawga sameystay baashan jadiidiyada waxba la isku eedeeyay
adigu maalintii aan filayay inay ballantu ahayd dhammaadkii sanadkii 98 la isu keenay labada garabba dadkii markaa xoogaa la isleeyahay waxbay fahmi karaan ama meesha la isku haya fahmi karaan waa loo yeeray marka meeshii aan deganaaba la iigu yimid oo la iga waday si aan dhegaystayaasha uga mid noqdo halkaa marka mulaaxadaad waxaan rabaa dad badan aan goobjoog ahayn oo laakiin cabqariyiina maskaxiyan rag iyo dumarba dhisan su-aalihii la isweydiiyey qaar waa laga jawaabay qaarna jawaab waa loo waayay labada garabba midna anigu ma u iilanayo mutacasibna ma ay horaan u sheegay inaan urur oo dhan aan mutacasib ku ahayn wixii diintaas ay fartaan jecel aan ku shaqeeyo marka labada qolo waxaa kala matelaya dhanka ictisaamka sheekh xasan daahir aweys baa ugu muuqday markaas shiino miyaan wadaad kaloo la socday iyo mid saddex qof in ahayn baan u malaynayaa dhanka kalena waxaan ka xasuustaa xasan xabeeb iyo sheekh cabdullaahi caashini la yidhaahdo iyo qof kaloo asna saddexaad aduu saddex in loo fadhiistay waxa un duubanayay waa dadkii iyaga la socday baa ma aqaan rikoorey ku duubanayeen ma qalab kale ku duubanayeen ma aqaan qalabyo badana casri hadda ma jirin badana doodaasna meel dambe oo laga daaray oo laga dhegaysanayay dib umaan arag ma aqaan mastida loo soo afjaro loo baabi'iyey mise waa iska baaba'day xataa waxa doodaha kale oo madaxa kale waan maqlay iyadoo meelaha laga daaray oo laga sheegayo tan ma arag doodii marka alxamdulilah maalinta dadkaa joogay waa bilaabeen waxaa la isku eedeeyey qolaba qolada kale waxay ku eedeynayso marka qalin iyo buug baan qaatay maalintii waxaan qorayey eedaha qoladan la imanayso iyo jawaabta qoladan la imanayso iyo wixii aniga markaa fikriyan ama caqliga ama cilmi iga ziyaada muhiim bayna aha dadkan wada hadlaya in la dhegaysto oo qolaba qolada kale maarata wax ku eedaysa si kaftana waxaa bilaaba hadalkii xasan daahir aweys oo wuxuu yidhi anigu waxaa la baxdeen buu yidhi salafiya laakiin waxaa idin dhihi karaa buu yidhi sufahaau salafiya yacni maangaabkii salafiyada arrintaas marka waxaa markiiba u jawaabay cabdullaahi xaashi wuxuu yidhi waa laba magacoon isqaadan karin waay asalafiya haddaad tiraahdo waxaa weeye waa dadkii hore saxaabadii taabiciintii maangaab inaan ku tilmaantana de laba magac maangaab isma qaadan karaan marka waad ku khaldantahay arrintaas waxaan dareemayna in looga gar helay xasan daahir aweys warkaas iyagii baa soo hadla waxay yidhaahdeen dhanka kale annagu waxaan idinku haysanaa 3 ama 2 arrimood baa ugu muhiimsan waxaa hadlaya salafuljadiid oo jadiid aan salaf waa dadkii hore laakiin hadday cusub yihiinoo manhajkii salafkan wadnaa bay dhaheen magac ahaan bay u qaateen markaan anagoo ayaga aan aqoon baan dhihi jirnay salafiyiin baana ayaga maana aqoon markaan 92 salafiyiin sheeganayni kuwaan maana aqoon kuwaan magac ahaan bay usoo qaateen laakiin markaa waa ognahay maxamed amiin jaami inay ku xiran yihiin wadaad markaa sacuudiga ku noolaa weli markaa inuusan dhiman baan u malaynaya oo hogaamiyahoodii ama muasiskoodii ahaa xataa qolada yeman ma imaan markaa soomaaliya qoladan kale ee damaaj ka soo aasaasmay ee sheekhii la oran jiray sheekh muqbil haadi ibnu haadi nimankii ku xirnaa oo xaajuuriyiintu hadda kuwan dambe yimid xaajuur mar dambe yimaadeen iyagu waa waqtigeedan ka hadli doonaa waa xasan kaafi iyo gruubkiisa kuwan dambe hadda ee jooga kuwaas way ka horreeyeen xasan xabeeb iyo saaxiibadihii markaa reer xaajuuriyiin ma ahayn waxay ahaayeen sacuudiga madkhaliyada qolada hadda loo yaqaan markii horena jaamiyada dadka qaar ay oran jireen qolada markaa sheekha hogaamiyaha dadku raaciyaan ayagu laakiin salafiyada isu yaqaanaan waxay yidhaahdeen haddaad tihiin al-ictisaam maxaad magac inta ula baxdeen gaar ugu istaagteen oo taxasubkay inkirayeen markaas sida ayagu inaysan xisbi ahayn laakiin maanta waa la wada yaqaanaa waa xisbi salafiye la baxay wey waliba xisbi ahaan isu urursada haddaad weydiisan laakiin xisbi ma nihin buu ku dhihi maxaad marka ula baxdeen xasan daahir baa la weydiiyey wuxuu ku jawaabay si fidid isagoo dhoolla caddaynaya tamyiizu shabaabi can shacab magacan waxaan ula baxnay buu yidhi ashabaab waa wadaadada shabaab la dhihi jiray waagaas intaan xarakadan magaca loo bixin ereyga ashabaab yaa macshara shabaab culimmadu dhihi jiray dhalinyaro iyo camal oo diinta u dadaala oo shaqeeya waxba
marka dhalinyaradii wadaadada aan ka soocaynay buu yidhi shacabka. xasan daahir baa ku jawaabaya. waxaa la weydiiyey oo maxaa shacabka uga soocday? shacabku magaala iyaga iyo hogaankooduba nabadoonnada, ugaasyada, salaadiinta, beeldaadiyayaasha, nimankan hogaanka dadka garaadada xukumaay oo shacabka xukumaay, iyo nimankan loo yaqaano zucamaa alfasaa'il, yacni warlord bay dadka qarooran jireen ama qabqablayaasha dagaalka. maxamed qanyare afyax, cali mahdi, markaa caydiid ma noola, wiilkiisaa jooga xuseen caydiid iyo caate iyo dadka markii xamar joogay ama kuwa gobolada kale jiray ee soomaalida kale qabqablayaasha dagaalka loo yaqaanay. waxaas magaalaa buu yidhi. ilaayaga manhajkoodu waxaa weeye ugaasyada iyo nabadoonnada iyo wasiirada iyo madaxweyneyaasha iyo baarlamaanadu inay yihiin weliyul amr, in la adeeca bay waajib tahay. barnaamijka salafuljadiid ee markaas ee cusboonaa waxay dhihi jireen daaquud waxa la yihahdo ashahaadanaya ma jiro. aan dhowr goor ku doodnay, iyadana waa gaar baan oga hadli doonaa. marka jawaab waa waayey isaga xasan daahir. dadka iyo hogaankoodu magaala maxaad uga soocanteen buu weydiiyey. oo marna aad itixaad ula baxdeen, oo dadka xabad ugu qaadateen, oo bari uga dagaalanteen dad ku layseen, oo gado uga dagaalanteen dad ku layseen, oo Ethiopia uga dagaalanteen Soomaali galbeed dhulkaas goday ereyada dad badan ku layseen, idinkana laydinku laayay, oo araare ku dagaalanteen, oo caydiid kula dagaalanteen dad badan ku layseen, idinka laydinku maxaa dadka ula dagaalamaysaan? dadku ma muslimiin baa horta ka aaminsantihiin mise kufaar? iyagii hogaankoodiiba. sheekh xasan daar waa aamus. wuxuu yidhi anagu hogaanka qabqableya dadka kitaabka ilaahay diidan, waad ogtihiin inay yihiin niman dawaaqiida faajiriina, magac u bixi baa la yidhi. ma mushrikiinba oo kufaar weeye oo murtadiina mise waa muslimiin? wuxuu yidhi cabdullaahi xaashiyo ninka cadcad marka xasan xabeebku war badan ma yaqaan, iska towtowleeye xoogaa mooye, ninka tafka ah ee af soomaaligiisu faseexa yahay ee mar walba nimankan ictisaamka hadba dhinac ka ducinaya waa cabdullaahi xaashi. sheekh cabdullaahi xaashiyo buu yidhi xasan daahir baa dhahay, adigoo qaadiriye ah oo gaalkacyo jooga oo ebra, anigu soo kuguma yeerin buu yidhi towxiidka iyo fahamka saxiixa ah. hadalladii kale jawaabta meesha laga sugayay su-aal buu ku jawaabay sheekh xasan daahir. waa qoraynaa, annaga waa qorayaa, ixtimaalaadna way ku jiraan meeshaas, qofka caaqilka a garanaya, iyo tacliiqaad. wuxuu yidhi waa runtaa, waad iigu yeertay xaqa, ilaahay baana ku mahadsan buu yidhi, laakiin ma iigu mana sheeganaysaa? labadu waxay isla qireen qaadiriya inay baatil tahay, waxa ay sameynayaan suufiyaduna shirkul akbar inay tahay, laakiin iyagu muslimiin yihiin. waa su-aal jawaab u baahan. ninkan wuxuu yidhi baatil baad iga soo hanuunisay, ilaahay baana ku mahadlay, ma imana sheeganaysaa? ma imana sheeganaysaa? ma yidhi, laakiin waxaan ku tusayaa xaq lagaaga horeeyo lagu soo halgamay inaad maanta aad maaragtay meel kale u rogo xoogaa noocan ma macallin iyo ardaygiisoo kale ka dhigay hadallada qaar iga kala dhin oo kale. laakiin meeshaas macallin iyo arday maahan, si fiican baa lasu waajahayay. qoladii jadiidiyada waxaa la weydiiyey, xasan daahir uu weydiiyey salafuljadiidka, wuxuu yidhi waxaad col la noqoteen halganka caalamiga ah ee lagula dagaalamayo imperialismka ama shuuciyadda. dagaalka Chechnya ma ogolidin oo Ruushka lagula dagaalamayo, kii Afghan ma oodan ogolayn, midka ka socda Israa'iil oo Yuhuudda lagula dagaalamayo ma ogolidin, Soomaali galbeed inay halganto xabashiis ka kiciso ma ogolidin. sideedaba waa diidan tihiin qof diintii u nasab sheegto islaam ah inuu isdifaaca leeyahay. yaad u shaqaysaan baa la weydiiyey jadiidiye. waxay dhaheen warkaas waa been abuur, annagu ma diidno in la isdifaaco, laakiin shuruudo badan baa difaaca ka horeeya, oo shuruudo aan la gaari karin. waa in la helo imaam caam ah. jihaad marka la gelayo adduunkao dhan imaam maamulayo, iska arrin aan mustaxiil hadda aan muuqan. anaa shay markaa rabto inaad inkirto masale mustaxiil haddaa ku xirto waa weligeedba lama gaarayo. koo waxayna waa imaam caam in la helo. marka labaad imkaaniyaad awood dhaqaale iyo mid ciidano la siman cadowga aad la dagaalamayso waa inaad hesho. bilmatel Chechnya Ruushka lala dagaalamay, dadka Chechniyiinta waa inay helaan awood u dhiganta midda Raashka. haddaanay helin dee waa intixaar bay yidhaahdeen,
dadkii waa la xasuuqaya dhulkii waa la baabi'inaya adigina dadkii waad u loogaysaa cadowga sidoo kale kashmiir bay dhaheen ayagana waa in la hel awood waa inay helaan Soomaali galbeed dadkan waa jabhadee awood ay keenayaan baa leeyahay dadka ma diyaarada iyo warshadaha u dhalanaya haddii wixii ay haystaan aanay ku hawlgelin oo ku dagaalamin dad awood leh in la burburin karo soo ma ogodina kuwa tabar daran ay burburin karaan oo Allah Quraanka ku yiri kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah hadday arrintu sidaa tahay nabi daawud muxuu u dilay Jaaluut labada ciidan yaa xoog badnaa ciidankii Jaaluut 600,000 baa lagu sheegay riwaayadka qaarna 60,000 ciidankii Taaluut oo nabi daawud oo wiil yar oo ku dhex jira markaas oo risaaladii loo magacaabin oo asoo ari la joogo hore u soo raacay waxaa lagu sheegaa dad 900 ama 600 ama 3 dad adigu aad u tiro yar xataa 300 culimo qaar ba gaarsiiyay tiradooda dagaal bayna galeen jihaad ولما برزوا لجالوت markay banaanka la isugu soo baxay Jaaluut ciidan aad u fara badan buu ahaa kaas waxay yiraahdeen la taaqata lana al-yawma bi Jaaluut wa junuudihi ku nifaaq iyo dhuffi ku jiray maanta awoodan iskama celin karna dhehen maxay muuminiintu ku jawaabeen kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira biidhnillah wallahu ma'a as-sabirin hadii marka taas aysan jirin cadawga intuu la egyahay kale in la helo ay shardi tahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu la dagaalamay leeyahay quraysh 300 oo aan xataa kamin lahayn sideeba kunnin oo diyaar oo la dagaalamay waaba ka badan intay kun ka noqonayaan mid sugaan 700 uhud muxuu ugu la dagaalamay ciidan ka fara badan oo 3 kun ka badan oo quraysh jadiidii afkay taageen hala barnaamijkooda baa hawlahaas oo dhan la soo afjaro waxa loo yaqaan muqaawama in cadow la dagaalamo dhan laakiin midii ahayd maxaad uga soocanteen bulshada Sheekh Xasan Daar jawaab oo waay bulshada ama mushrikiin ku sheegay oo ka sooconahay dheh ama muslimiin ku sheegay raac baa leeyahay waa jawaab la'aan baa ku dhacday kana jawaab la'aan baa ku dhacday markii la yiri la horkeeray nusuusa in cadowga la iska dhicin karo waxa la isla soo gaaray suufiye iyo shiica suufiyada iyo shiicadu akhwaanka qolada xigta oo ictisaamka aba u jilicsan marka loo fiiriyo kulli khuraafaad buu wada yaqaanaan horta laakiin mushrikiin mid dhahaya kuma jiro mid walba wuxuu yiri shirkul akbar bay ku jiraan waxaan oran karnaa fasaad iyo ifsaad bay wadaan qaadiriyadoodii axmediyadooda asdhaamaan xooga axmediyada soo dhaweynayeen waxaa jira nin kale la yiraahdo iyagana oo caalam kale ka jira tijaaniya iyo samaaniya iyo burciya iyo qolo walba ma dasuuqiya iyo rufeeciya waa xasran waa suufiyada caalam in ahlu shirki waa isku raaceen marka waxay ku jiraan inay tahay shirkul akbar oo awliya la caabudayo aqeeyo saxiixa dadka in loogu yeero in hadafkoodu yahay ninka marka awliyada caabudayay muxuu yahay xukunkii labada waa ka aamuseen laakiin anu qalinkan ku qorto waxay isku raaceen shirkul akbar buu ku jiraa waxay kale isku khilaafeen mas'ala taaquut اعتصام طاغوت ويقان واجي اتحاد كاين waxay rag ku dagaal gelinayeen waay عيديد waa طاغوت عبد الله يوسف waa طاغوت محمد سياد بر طاغوت buu ahaa wixii kitaabka diido dhan طاغوت buu ahaa Umar Xaaji Masala طاغوت buu ahaa laakiin markay hubkii dhigeen oo ganacsiga dhaqaale iyo jaamacadaha iyo macaahidda u soo jeesteen barnaamijka طاغوتku waa la laabay kitaabka طاغوت ku yaalo dhan gadaal baa la dhigay kuwana ba cadcadba oo oranay wali amrigi ba diidantiin wali amri wala dagaalanteen wali amr ay nin kasto madaxa fircoon bahaada wali amr ninka jadiidiga qola kasto madax ah waxaana hubaa xilligii maxamed siyaad barre aday iman lahaayeen in la adeeco dadka ugu yeeri lahaayeen markiziyada xaqiiq waay maxaa yeelay haddaba waxay ogol yihiin in la adeeco Jamaal Cabdi Naasir bay amaanaan kii uu dilo Sayid Qutbana way caayaan ninka iyaga garanaya waay marka ayagu kana warroona طاغوت soo uga hayay markuu ka adkaan waayay buu iska xeelaysto dhulka isku dhajiyay kan ictisaamka saruuri bay yiraahdaan marka nooc waxay ka dhigaan nooc waa ikhwaan noocna waa salafi la isku dhex daray saruuriya dadka qaar ku eedeeyaan qolo la yiraahdo ana wasnaltiisa طاغوتki maba ogolaba waa jirtay xilli aan dagaalanay taas kama cudur daaranayno
dadaal bay naga ahayd qofka muslimkaana waa ijtihaada ijtihaadkiisa hadduu ku khaldamana hal ajar buu leeyahay hadduu ijtihaadkiisii uu ku saxsanaadana 2 ajar buu leeyahay boqolaal qof baad leyseen baa layidhi imise qof aa itixaad ku disheen gobolka Gado ama gobolka Bari laga bilaabo Nugaal ilaa iyo Saliid oo Cergaabash ku dhow laas qoray imise qof ku dhimatay imise ku dhimatay intaas oo dhan ijtihaad baa waliba sanadee socdeen maya waa dagaal aad mabda ku gasheen markii wixii idin socon waayeen xaaladdu in badbadisheen ninkii shalay aad ku dagaal galisay taaquud weeye kufaar weeye ilaahay kitaabkiisu diiday la dagaal maanta maxaad dhihi kuma adkaysan karaan taaquud weeye maxay iyagii baa raacsan oo u kala codeynayo oo meelaha qaar garab taagan oo arkaysaa oo xataa meeshii wixii ka dhici jira doorashooyinkii Puntland waagi dambe markii waatay maxaa abshir muuse garab istaagan iyo Cabdullaahi Yusuf ka cararay al-ittihaadku oo siyaasadii dhex galeen qolada is yiraahdaan baxoogaa isku fiicantiin bay taageeri jireen awood dhaqaale iyo mid siyaasadeedna waa leeyihiin niman taf ah kuwana marka manhaj salafka anaga wadna dadka dhan baan taageersannahay ugaaskooda nabadoonkooda dimuqraadigoda calmaaniga waxa adaa kala saaray waliyul amri iyo shacabka taageersanaaban taasana xaq ay dhaheen waliyul amri hadduu yahay dimuqraadi hadduu yahay xeer beegti ugaasa nabadoona waxa shariicada ilaahay ka tagay kitaabka ilaahay oo laga taga xaqooda uma yaqaanaan wax kufri taaquud waa salaf jadiid barnaamijka aan dhigi jirnay waa meesha kan la abuuray la sameeyay saddexdaas su'aalood baa la isweydiiyey kanu kama jawaabin halgan caalamiya oo ninka muslimka isku difaaci karo oo sharci ah inuu jiri karo hadii muslim dhaba uu jiro koow shuruudo ku xiray wuxuu yiri waa in hubka la daadiyaa kana wuxuu ka jawaabay ummadaad ka soocan tahay oo Allah shirkul akbar bu sheekhood ku jira la suufi waa sheekhi shirkul akbar na cudur daar male qaraabada nabiga lagu cudur daar way alayhi salatu wasalaam ayuu ku jira waana muslim isma qaadaysan sheekhow saddex su'aalood oo jawaab kala lahayn oo middo wax ku garheelaa lagu soo kala tagay waa la isgacan qaaday laakiin lama kala guuleysan ninba ninka kale wuxuu ku qabsaday waa kaga garley annaga marka fursadna lama siin xataa markii la soo macsanayn waa salsalaanay waa soo kala tagnay su'aalo kale kuwa kalena way jiraan hadda aan xasuusanba markaan soo baxana nin ila socdo Cabdiwahaab la oran jiray wadaada oo rag ducaad ah ka waran biir maanta see loo galay jadiidiyadii niyo ra'yi su'aal cajiib ah weydiiyay sheekhu muxuu uga jawaab waayaan ku yiri Xasan Daahir maxay ahayd biir maxaa kugu dhacay ma maqlayn miya su'aal baa la weydiiyay ummadda maxaa uga soocantaa la weydiiyay xukun saar baa la yiri una ka wareeyay ka waran ma ku yiri soo garku ma ilahan baa niman kale laba mid inuu yiraahdo mushrikiin oo gaar uga istaago inuu yiraahdo ku khaldanahay in la dagaalamo oo ka soocmo waa walaalahay oo dhaxgalo ugaaskooda adeeco sida kuwan yihiin Allah waa su'aal macquul ah laakiin iyagu halkan ka caalamiga ay diidan yihiin iyaga barnaamijkooda waa gaar laakiin su'aashan sheekha la weydiiyo soo lagama garhelin haa sax baan wada fahansantaa ku labadooda waxaan ogeyn ninka waxay uga yeereen la wuxuu Xasan Daahir baa wuxuu u yeeray Cabdullaahi Xaash wuxuu uga yeeray maxay qaadiriyu ahaa qaadirida gaalka ay joogtan waa kuwa la yaqaano Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani si adag u caabida way ka jiraan oo ka dareeyeen Soomaalida kale dhulka mudug dadka degan waa ka bilow marka baladweyne laga rogmo ilaa Nugaal galmudug dhulkan la isku dhaw ahlu shirkigooda iyo suufiyadooda waa ka adag yihiin xagga shirkiga iyo khuraafaadka kuwa kale ama waqooyi iyo galbeed jira iska xadreeyo raamaha leh kuwaanu diin bay moodaan oo ku dhintaan kulliga diin bay moodaan laakiin kuwana waa kaga sii xag jiraan marka gaalka ayaan looga yeeray oo si hoos u hadlay wuxuu yiri xaqii ilaahay baa fahamsiiyay sabab aan u ahayd waxaan ku weydiinayaa baa Sheekh Cabdiwahaab maxaa looga yeeray Cabdullaahi Xaash wallahi bil xaq looga yeeray soo indhala muxuu ahaa baa ya muxuu ahaa oo su'aasha hadda qof walba oo baraha bulshada iga daawan doona aan weydiinayo Sheekh Cabdullaahi Xaash wuxuu qiray inuu baadi ahaa shirkul akbarna ku jiray ma muslim buu ahaa islaam baa kala loogu yeeray mase mushrik buu ahaa tawxiid baa loogu yeeray anu jawaabteedu aqeeyo waxa laga dad badan og yihiin
laakiin waxaan su'aasha weydiinaya waa damiirkaaga iyo caqligaaga iyo cilmigaaga ninkan ilaahay khayrkiisu caabudayay tawxiid baa loogu yeeray muxuu ahaa maxaase loogu yeeray sheekh xasan daara weysman laftigiisa khadka ka weydiiyey 2019 maraan muxaadaro ku jiray isagoo xabsi ku jira kama soo jawaabin waa ka xeeladaysta maalintaas waxaa tiri baan ku iri cabdullaahi xaashi ku tiri wadaadka kale sheekh cabdullaahi xaashi ee jadiidiyada ahaa waxaan kugu yeeray tawxiid adigoo qaadiri ah maxaad uga yeertay muxuusan noqday baan ku iri ma muslim noqdayba mase mushrik muslim noqday soo kala saar waad iga geysantahay buu kusoo jawaabay aniga waa ma gaalaysiinayo culimmadaydii dadki waxay soo baray khuraafaad badan baan jiroon ogahay sheekh cali suufi meesha lagu samayn jiray cabdiraxmaan suufi meel mid madaxtooy agtiisa ku aasan sheekh hebel agtiisa wax badan lagu samayn jiray waan ogahay laakiin waad iga geysantahay noocan kaftan buu ka dhigayo waa maaragtay waad iga geysantahay jawaabtu saas maaha geesinimo iyo fulinimo arrintu maaha ninkan ilaah kheyrkii buu caabudaa muxuu yahay kana alla keliya caabudaa muxuu yahay سياسة لبا مسلمين وضع النقطة يعني إلهية بدن عابدة يعني هل إله عابدة دود أسمركا حنسلاي هاي لبدا قرابة ماذا حيسكولوا فتين لكن دادك كلا لجيساني أنا كوشري وحبدان بقى زيادة أو قرابة كلا نقطة ضعف في راسنا ساعة وحيابها يكون آذان يسوء أنا وحكفها من الدنبا أنا وجرت ما أنا قلت تعصب قلنا ولو مركز هرب الاتحاد كان لسه شقيقي أو مركز دجالة كوجي لكن ما قلنا ولا بيع ما قلنا الحمد لله إله وكم أنا أورنا أنا بيع وقلنا أوسو يمد قدام مركز دجالة ميني إن حبشك عشان نروك النبي أنا كفر أحسن إلى أنا أجر بانك حساب سنة هنا كريستان يوحي على دجالة مين مركز دوداس مقدشة كده عادي وقت يدا وحنا ربا قف والبا aqoon u saaxiib iska dadka hawaamishta ka hadli maayo waxyaabaha la isku hayo laba arrimood ba ugu muhiimsan xukunka la saarayo dadyowga islaamka sheegtay laakiin shirkiga ku jira isku mid bay ka yihiin labaduba xoogaa midba adag oo taaqud sheegi jira laakiin ka haray wax xukun ay saaraan maanta male maanta labaduba shirkiga waa inkiraan laakiin mushrikiin ma joogaan hadda u fiirso sheekh bashiir axmed salaad baa arkaysaa wadaadka ictisaamka oo fogeynaya qabuuriyiintii dhanka kalena jadiidiyada fiiri waxaa ugu cadcad gacma dheeraan u malanaya ninka dhallinyarada ah ama wadaadka kale asna xajuuriga ah la yidhaha xasan kaafi maalin walba shirkigooday sheegayaan laakiin waa muslimiin haddii su-aal la weydiiyo la yidhahda shirki buu ku jiraa waana muslim iswaafaji jawaab ma hayo takfiir baa tahay buu ku dhihi takfiir baa tahay jawaab ma ah qof kastoo muslima inuu wax gaalaysiiyo waa asalka diinta waayo maxaa ilaahay gaalo ku sheegay kristaan waa inaad gaalaysiisaa yuhuudda gaalo ku sheegay waa inaad gaalaysiisaa lucina aladiina kafaruu min bani israiil marka la yidhahdo dina kufaarihiin baad qiraysaa laqad kafara aladiina qaaluu in allaha thaalithu thalaatha waa kufaar way kristaanku mushrikiintana alla muxuu ka yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira ilaahay waa xukumay qof kasta ilaah keyrkii caabuda inaad gaalaysiiso wix alla gaalaysiiyey waa waddo aad nebi maxamed ku raacdayba calayhi salaatu wasalaam ee midda la nacsan yahay ee khaladka ee baadilka ee khaarijnimada ah waa inaad muwaxid ilaahay u hogaansanoo mushrikiinta beri ka ah inaad ku gaalaysiiso ra'yi iyo urur iyo qiyaas doodaas marka aniga xikmad badan baa iga ziyaaday waan raadiyey xataa cabdullaahi xaashin aan la kulmaan damcay waa iga diiday wuu og yahay waxaan weydiinayo sheekh xasan daahirna sidoo kale waa la kulanay laakiin dhowr qof baanu ahayn fadhi baanu wada fadhinay su-aalihii loo dhiibay oo dhanba oo kiyaalu la soo baxay hadda ima xasuustaa isagoo maalinta aan la shireeyo oon meel hotel aan kula kulnaan malanayo oo nin kale su-aalaha weydiinaya aniga maba weydiinayinba waa soo salaanay un cabdullaahi xaashina waaba diidayba wax ku saabsan doodii in wax laga weydiiyo iyo xasan xabeeb iyo waxba inay ka hadlaan waa diideen dhowrkii qof ayaga isku fikirkeen la socdo rabaa laakiin su-aal lagu soo weydiiyo wixii lagugu naqdinayay maxaa ka jira marka la yidhaha ma kuu jawaabayo waxbaa qarsoon marka halkaas shaas daahirna waa diiday asna inuu faahfaahin dheer bixiyo laakiin alxamdulilah hal 3 saacadood mise 4 saacadood meelahaas socotay si fiican baan u dhageystay wax badan oo nuqdooyin oo ka qoray halka arrin marka labada aan ku inkirnay waa maxay xukunka shucuubta taas waa goor waa mid gaar ah mid ayagu gaargaar isugu eedeeyeen marka
oo la yiri kuwan meeshaad ka soo aasaasanteen ayaan garanaynaa in reer galbeedku idin aasaasay reer galbeed toos looma dhihin cadowga idin aasaasay la yiri waxaana diidaysaan qof diinta islaamka u nasab sheeganaya inuu qor inta qaato wax iska dhiciyo meeshuu doonaba ha joogo ama China ha joogo ama ha joogo Russia ama ha joogo waxa oo dhan ba khalad ba u taqaanaan marka xoreyntii la isku xoreeyay Liibiya xilliga Umar Mukhtaar waa khalad dagaaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Ingiriis uu kula dagaalamay xaqiina waa khalad kii Hebel al-Mahdi uu kula dagaalamay Ingiriiska Suudaan waa khalad yani wax alla wixii cadow Kristana ama Yahuudiya lagula dagaalamay taariikhda khalad baad u aragtaan tii Ruushka iyo Sofiyeedka lagula dagaalamay Afghanistan iyo bartamaha Aasiya iyo Tajikistan waa khalad Kashmir halgankii hadda ay ku jiraan sida isaga xoreeyaan Hindiya waa khalad yaad u shaqaysaan baa la yiri marka haddaan qofkan isdifaaci karin daliil ma hayaan marka amiir qaa'ima caalamka u taagan hadduu shardi yahay marka fadhigii meesha lagama sheegin amiir adduunyada maamulaya hadduu shardi yahay dowladdii cabaasiyiinta oo dhan waxaa burburiyey oo soo afjaray maca hoggaankoodii dilay tataarkii qarnigii 7 600 hijrada 618 taariikhda hijrada markay mareysay wabiga Siixoon ka soo gudbay taaquudkii weynaa gaalkii majuusiga ahaa ee la oran jiray Genghis Khan dowladdii khawaarizm oo dhan buu soo laayay boqolaal kun buu dilay qof malaayiin dheh Hamadaan buu soo degay wiilku awowga u ahaa haddana Holaco ayaa qabsaday Baghdad amiirkii dilay Muctasim ninkii la dhihi jiray dilay mid buu sii diray Katbuqa oo loogu talagalay inuu Shaam oo dhan ka takhaluso afartii magaalo ugu waaweyn ee Macbadul Maqdis ku jirtay uu ka takhalusay dowlad ma jirto markaa maxaa soo haray waxaa soo haray mamaalik oo Masar joogta mamaaliktii abaabushay oo nin uu hogaaminaya la oran jiray asbaab adoon la soo gato waagi hore ahaan jiray Sayfuddin Qutus baa ku jabiyey Aynu Jaalut guusha Aynu Jaalut ma waxaan leenahay waa khalad bay ahayd amiir caama ma jirin مثلا إنay maalintaa isdifaacaan ka islaam ahaan oo tataarka la dagaalamaan oo ilaahay baryaan baa khalad ahayd ma sax bay ahayd loomana shardiyan in cadowga la iska dhiciyo in awoodiisoo kale la helo khiyaalkaas waa fogaan waa Mareykanka oo kale ilaa aanu ka helno nuclear ama sida Ruushka laga helo waxa la yiraahdo intercontinental missile gantaalaha qaaradaha iskaga gudba inta ka horeysa Ruush loo hogaansanaanaya miya mise waxaad haystaa iskaga dhicinaysaa waaba hadduu ku dulmiyo oo kusoo xoog kuu soo sheegtee marka waa nooca jaqabinaya qofka moralka laga dilay cadowgan iskama celin kartid u rukuuc in la yiraahdo waa marka waana barnaamijka ay xagga wax iska dhicinta ka wadaan xagga caqiidadana taaquud oo dhan ba xagga iska dhigeen waa salaful jadiid nimankan sheegayo taaquud wax la yiraahdo oo iyaga iska dhaafeen ما كلها ولي الأمر بلي حاكم ولا مسلم أضيع ولا إله كتاب سكوم عمل أضيع بكل هذه حاكم مسلم ويسكت تاجين كو قرآن كلا سيدا مركو رواقة بين طاغوت كريد واقع بين لكن وأسكت بدلين كواس كلا فكرين مانت ومانت لبض الجرب وإنكر يعني شركة قبورها طواغيت دينا ولا وجد ديري وحوي حجر مستعجي قلا كلا أنا هاو حنقصه قبل قصه كوبيا لبض النقطة اللي سكوهي mid waa xukunka la saarayo dadkii Ilaahay u shariig yeelay shariicada Ilaahayna ka tagay ama qabri caabudaya xukunka la saarayo koow oo baadil waa isla qirsan yahay laakiin baadilkoodu intee gaarsan yahay qabri caabudka mushrik ba mise waa muslim yucdar baa wada yiraahdeen labaduba yucdar waa cudurdaar buu leeyahay waa muslim haddii daliilka quraanka iyo loo kaco iyo xadiidkana cudurdaar ma leh shirkul akbar wa in kaana jaahilan minna waa xaakimiyadii oo kitaabka Ilaahay oo laga guuro in loo halgamo waa la iska dhaaf labada qolo marka in laga guuro oo laga hor yimaadaan ka wada waa la iska dhaaf labada qoloba hal arrin cajiib ah jirta marka ay ku kala duwan yihiin qolada ikhwaan bay raadka ku hayaan saam salafi ba ha sheegtaan ay raadkoodu duntooda dambe waa ikhwaanka Masar qoladana salafiga sheena duntooda dambe waa ciid Sacuudiga qola tacabudiyadii iyo shirkul qubuurkii iyo awli caabudkii iyo ilaahay geerkii loo qala ay la dagaalsanta si fiican oo la dagaalsan xukumin oo mushrikiin aanay dhihin
qoladan salaful jadiidka laakiin arrinta aad bay ula dagaalamaan ama ictisaamku iyo ikhwaanka kaleba maya aad uguma xoog badna ictisaamkaaba roon laakiin ikhwaanku waad arkaysa hadda wadaadka islaaxa ikhwaanka soomaaliga caanka isagu waaba dhinac suufi uu ka yahay iska flexible mid hadda jooga oo wadaadkan jooga magaciisa aan xasuusnayn cabdilxayi miyuu ahaa cabdilxayi waa kala qayb gelaya xafladihii dhankan waa kala qayb gelaya dhanka kale beri haddii loogu yeerana kala qayb gelaya wax isdiida male asaga marka ikhwaanku xoogga waxay saarayeen xaakimiya ilaa ay ku fasireen laa ilaaha ila allah marka macnaheeda la fasirayo alxaakimiyatu alculya lilahi waxdah laa ilaha illa allah maxay ku fasireen xukunkoo dhan allah iskale xukun keliya miyay ka hadlaysaa maaha micno kale waaye oo maxaa la rabaa marka xukunkii raadi xukun waa maqane in lagu yiraahdo maya waxa maqan waa diin caqiida waaye laa ilaaha illa allah ambiyadu la yimaadeen xukun doon maaha nabigu calayhi salaatu wasalaam islaam doon buu ahaa dadku markay alla waxidaan caqiidadooda nadiif noqoto marka dadku ay caqiide ahaan dhismaan oo caqiidada laga saxo ayaa shareecadii maamulkeeda loo soo bandhigaa si ay ugu dhaqmaan laakiin dad caqiide eber ah in shareeco lagala hadlo waxba khiyaali waaye waana xadda iiraaniyiinta iyo dadka qaar ay moodayaan dowlad islaamineed dadka ilaah keyrkii caabudaya ahlbeytkii caabudaya in la yidhahdo shareeca lagu maamulaya ambiyadu waxay la yimaadeen towxiid towxiidkuna waa laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye cibaadoo dhan oo xukunkii ka mid yahay maaha xukunka keliya maaha cibaadadii oo dhan ee cibaadada oo nooc walba leh ayaa xukunku qeyb ka yahay kulli cibaado oo dhan marka mid yar iyo mid weynba waxaa iskale oo keliya allah waxdahu marka nimankii ikhwaanka ay afkaartoodii maxay noqotay in qofku uu fiirsado xukun bis waxa maqanba waa xukun waxaad ka garanaysaa 72 sano ama 74 sano ayay hadda jiraan ururka ikhwaanku jiraan masar khilaafan soo celinaynaa bay yidhahdeen masarna waa meesha ugu khuraafi badan bay ka mid tahay caalamka oo rufaaci iyo axmed albadawi malaayiin qof a caabudo ku tawaafta qabuurahooda hal mar ayagoo ka hadlaya ma arkaysa walaa kutubtooda caan bay ku yihiin arrintaa ma shaqo kuma leh ama xukunka inay ka hadlaan dulmiga xagga shareecada laga sameeya inay ka hadlaan makriga gaaladu maleegayaan reer galbeedka iyo reer bariga way yaqaanaan caqiidadan asiilka ee bini aadanka in laga saxo u baahan dadka ilaah in lagu xiro laakiin ka inxiraafsan yihiin dhanka kalena cadaalad marka loo sameeyo salafiyada hadda soo bax ma aha salafika xaqa ahaa ee manhajka nebiga waday ee culammadii waaweynaa ah ka hadli maayo laakiin qoladan jaamiya iyo madkhaliya magacyadan wata oo dadku ugu yeeraan iyagu salafiyiis ugu yeeraan iyaga noloshii iyo yani maamulkii way ka saareen shareecada islaamka weliyul amri buu ku leeyahay asagoo in ilaah keyrkii la baryo ma ogola wuu la dagaalamaa qabuure caabudkii doodii uu ku wadaa يعني إله غير كين لبريو ديديا لو قورعو ديديا شركي قاس دنكاس وإنكريا أما تحاكم كي إلهي إلا الصيو أو طاغوت لإنكراي حسابته ومجرته كتابه هذا وحان كأرقنا حتى إن الديمقراطية دا يقانا ولو قالوا حجورين دا إيقا وحقارون إن الديمقراطية دا يقانا دين بشر كو دكسدي دين بشر كو دكسدي هذا توا كفر زوما كي الديمقراطية هانا ولي الأمر يهاد مر كتابكم متهل oo kii dimuqraadiga amiirka ahaa hogaamiyii dimuqraadiga ahaa ee dimuqraadiyadda ku yimid xaggooda waa weliyu lamri xagga ficilka muuqaalka ama kitaabka maxaa ku qoran dimuqraadiyaddu waa diin shacabku degsaday bini aadan degsaday oo ilaahay diinkiisa garab socoto oo kufrigeeda way caddeeyeen marka labada qolo maxaa kala haysta ceelada qolo xukun doon weeye oo xukun iyo hogaan iyo nidaam unbay ku maqan yihiin oo qodada ugu badan oo islaamka kaliya ha fiirine waxa adduunyada ka dagaalamay jabhada ee dagaalamaya shareecadan soo celinayna bay ku dhihi ummadii shirkiga ku jirtana waxba kama arkaan qoladan jaamiyada ama madkhaliyaduna maxay yiraahdeen wax xukun oo la yiraahdo arrinta xukun ku saabsan oo dhan baa la iska dhaaf dacwada ha ku ekaato shucuubta meel kastoo joogaan ninka haysta calmaaniga ama dimuqraadiga kaasay ku xiran yihiin labada qoloba khaladka ay ku jiraan way caddahay waxaan u caddaynaynaa liyahlika man halaka can bayina wa yaxya man xaya can bayina intaas waxaa sii dheer labadaba qolo ka badan baa joogta marka
ومن إندونيسيا إلا يا موروكو كنتني أفر دولات مي على العالم الإسلامي لك الله يغني سديت بقول كيف صوفية مع مركز الشيعة القدرة سديت بقول كيف صوفية وحاول إندونيسيا كلا والله وكن أو جزيرة دود جزيرة وحاكم إذا مقالوين إلى هذا ناين بايوس أما سجالكي 9 الأولياء لو يقان سجال ولي بيقانان مدب عقار اللي يحرتيسو وضد انتو مشقو أصلا مدر قدودا مدر عدانا مدر بلوغا لو حرانيا كاسا كي دلي وايي كي عذر كبحي وايي كي مامول يهوغان وباهدي انتي شيخ نوري اوس لغا دونان جرا لغا دونانيا وانا دولة اوغو اسلام بدن باليرا ادونك 300 مليون باليرا هذا ودادا كنول xogaa yaro Shiinaysa buura marka laga reebo inta kale waa shahaadanayaan masiibadaas aan haysata oo shirkiga Marooka tag waa galbeedka waa sidoo kale Suufiye way loo yaqaan Tijaaniye Ahmed Tijaan baa la bariyaa waliba jaamacadaha lagu dhigaa suufinimada Masar Azhar baa joogtaba Ahmed al-Badawi waa ku aasan 6 milyan ama 7 milyan baa qabrigiisa ku tawaafta sanad walba رفيعي أحمد الرفيعي باكو آسن وبريا سوريا وبالشيعو شيعان ماملكا علويين وصيريين كو سنة شيكتنا قاربونا كما صوفيال عراق كبا درنبا ومالا إمام يدي ولا عابد الشيعة عابديسا مالا شيخ عبد القادر الجيلاني وهو آسن صوفي وعابدي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس دينك إلهي هل كاسو مريا نينك ما أنت ربا مركا إنو منهج النبي سوديها الراعو صدح أهرمود وإنو لي ماذا ويقدر دارا مركا كواد مقع كي إلهي أوبحي أنا هين يوصنو تعصبين الرؤور مخايد الله سميستوي كي إلهي بحي هو سماكم المسلمين من قبل المسلم إنا مركا كواد marka labaad ahlu tawxiid in ata ilaahay cid aan ahayn in la bariyo la magan galo loo gowraco wali ha ahaado ama nabi ama malag inaadan ogoleyn oo aad shirki u taqaan waxa ku dhaqmayaan aad mushrikiin u taqaan inaad shirki u taqaan asay walaalka yahay waa iska nasiib darrada waa murji'ada nasiibada murji'ada waa shirki buu ku jiraa waana muslim isma qaadanayso waa beenta hadda culimada irjaaga ee wadanka ku hayaan nagalama doodi karaan arinta waa martiqaadna wada ogtihiin in lagu caayo propaganda la raadiya laga jecel yahay inta lagu la doodo la garbaxo munaadara sharci la galo ay propaganda meel lama gaadho waligeed ba anbiyada iyo saalixiintu waa la caayay in la caayto Muhammad tarta marka ninkan wuxuu muslim yahay ku yahay sheeg baan ku leeyahay anigu jiilaani buu baryaay kan wuxuu muslim ku yahay sheeg baan ku leeyahay kitaabka Ilaahay ma ogola dastuur buu ku dhaqmaay maxaad idhi wax kale ku dhahan male in lagu caayo mooyee waa midka labaad marka midda saddexaad waa inaad rumaysan tahay inuusan xaakim musharrica jirin ilaahay mooyee sayidkana xukuma oo xaakimkeenna waa inuu ilaahay yahay koow waa inaad cibaadada u khaalis yeesho baryada iyo magangalka caqiidada nadiif tahay yani alcaqiidatu awalan laba ilaahay inaad xaakimka keliya u taqaan صدح وانا الأر حزب هذا التعصبين التعصب الإسلام قفك إسلام قال كنت وصل ولا عليه سو قف كان كنت وصلنا نبرك النغو تاسد كبد بادي بإذن الله إلهي هرتسا انت عن روا قرش هذا وحن أصيبين إلهي بأيوا فجيي وحن خلدينا نفط إذا قار كنت إلهي بربكيه وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم